kulanti wacan kuna soo dhowaada qaybtii saddexaad ee sheeko gaaban oo la magac baxday baro dastuurkaaga taasi oo ka hadlaysa doorka dadweynaha Soomaaliyeed uga aadan dadaalada dib loogu eegayo dastuurka qabyada ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. sheekada oo qoray Libaan Cabdi Warsame waxaa idinla socodsiinaya jilayaasha kale ah Oday Cabdulle, Salaad Anteeno, Cabdullaahi Kalgacal, Faadumo Indhooy, Axmed Dheere, Macalin Aadan, Cabdi Mahad iyo Sucdi Cali Shire ee ka bogasho wacan. السلام عليكم أصحابي. عليكم السلام. كلن wuxuu ku saabsan yahay gogol nabadeed oo fidiyey walaalkeen Mooge oo maalmahan ka biidiidsanaa sida loo wado howlaha dastuurka. Mooge gogoshan wuxuu u dhigtay walaalkiisa Miigane iyo inta kale wax ka tabanaysa oo qaraabada ah. wuxuuna rabaa gefkii oo ka galay inuu ka raali geliyo. ilaahay ma hadiisu walaalkeen hoobahneen qordhiibidi waana dhagan hajreen haayu may balle ko gorday dadka reer kalkaal walaagi humaan aho iyo towdaan sidun amal ino iska garaawan gogolina nin furunta may baa ka dhawaayay Mooge ugu horreyn waa idin salaamay walaalayaal waan ka qaadnay salaan kadib waxaan rabaa inaan si kal iyo laab ah ugu soo hoydo una raali geliyo bulshadayda walaalaha ah oo sharafta leh gaar ahaan walaalkay Miigane oo aan u gafay canaab ceelna dhex martay eeda badan oo uusan mutaysanna aan ku eedeeyo ku riixay hatana may baan weereey walaalkan Miigane marka hore waxaa mahadoo dhan iskale allahna garansiiye xaqa iyo qiimaha ay leedahay dib u heshiisiinta maasha Allah marka xigana waxaan u mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay gogashan oo aad idinku ugu horaysaan mahadnaq kadib waxaa farxad ii ah walaalkay Mooge oo garwaaqsaday in danaha deegaankeennu ka weyn yahay xadhig jiid laba qof u dhaxeeya haddaba waxaan idiin caddaynayaa in aan shuruud la'aan ku aqbalay raalligelinta walaalkay Mooge sharafaad leedahay isla markaana aan diyaar u ahay in aan ka shaafiyo wixii tuhun ah ee uu ka qabay howlaha aan bulshada u hayo war humow halka waayo wiligaaba hatana may gogolaha ka dhawaayay walaalkeen sharafta leh Oday Cabdulle soo gogolyahaninka laaba horta waa salaamantihiin salaan kadibna waxaan bogaadihaa tilaabada sharafta leh ee uu qaaday walaalkay Mooge ee uu ugu hoyda walaalkiis Miigane waxaa kaloo ammaan mudan Miigane oo horay u muujiyey karti iyo dulqaad badan awadana si xilkasnimo ku dheehan tahay u guddoomay raalligelinti loo soo jeediyey intaas ka kadibna waxaan marag shahaada ka nahay heshiiskaas dhacay waxaana idinka korahaynaa inaad ka rumaysaan haddii uusan jiro qof intaas wax ku daraayana shirku waa noo xiran yahay waad mahadsan tahay waxba ku dari maayo hadalka odayga Cabdulle waxaanse idin xusuusin lahaa in berri haddii alla idmo uu dhici doono kulan ballaadhan oo lagu gorfaynayo dastuurka qabyada ah dhanka kalena lagu iftiiminayo qodobada qaar madmadowgu ku jiray dhammaantiinna waan idinku wada casuumay sharafaad leedahay idin ala faataha muradnin marabe السلام عليكم عليكم السلام subax wanaagsan waan ku faraxsanahay in saaka kulankii bulshada si buuxda looga soo wada qayb galay weliba kulankan waxaa xiise gaara u yeelaya in ay maanta nagu soo biireen rag culculus oo si weyn looga tabayey sida Oday Cabdulle Mooge naga maqnaa mudaba kulankeenna maanta waxaan uga jawaabi doonnaa su'aalaha ku aadan dastuurka si dadka looga jaahil bixiyo howlaha aan wadno markaa yaan la ismartiyaynine si cadoo badheedha assalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaygu waa Mooge su'aal baan qabaa waxaan aalaaba idaacadaha ka maqlaa dastuurka qabyada ah marka goorma ayuu dastuurku qabyada ka baxayaa waa su'aal wanaagsan oo marar badan la isweyddiiyey horta haddaad maqasho dastuurka qabyada ah micnuhu ma ahan in aan weli la dhammaystirin qoraalkiisa
laakiin waxaa loola jeedaa waxaa ka dhiman tifaftir iyo talooyin shacabka ka yimaada. haddaan su'aashaada u soo laabto, dastuurku wuxuu qabyada ka baxayaa marka afti laga qaado dadweynaha Soomaaliyeed kadibna ay ansixiyaan. magacaygu waa hodan. howlaha dib loogu eegayo dastuurka xaggee marayaan? geeddi socodka dib loogu eegayo dastuurka Soomaaliya oo soo bilowday 2013 wuxuu marayaa meel fiican. howlahan oo looga gol leeyahay in sare loogu qaado ogaalka dadweynaha iyadoo loo marayo hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay isla markaana dadka laga wada qayb gelinayo, waxaa la filayaa in la soo gebagabeeyo sannadka 2019. waa oda cabdullo sheegiska dhan. si dastuurka loo qabyo tiro waxaa loo baahan yahay in la sameeyo sideese aragtidaanya loogu daraa dastuur ewelba sii qornaay. cabdullow hawraarsan horta, iyadoo lagu salaynayo wadatashi siyaasadeed iyo mid dadweyne oo ay hoggaaminayso wasaaradda arrimaha dastuurka, waxaa la qaadayaa tallaabooyinkan soo socda. 1. guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa dhigaya qoraal wax looga beddelaya dastuurka qabyada. tan labaad, guddiga iskudhafka ah ee baarlamaanka u qaabilsan kormeerka dastuurka ayaa marka uu hoos u eego isbeddellada la soo jeediyey wuxuu u sii gudbinayaa golaha baarlamaanka federaalka. 3. golaha baarlamaanka federaalka ayaa kadibna marka uu ka doodo wax ka beddelka dastuurka cod ku meel marinaya. 4. intaas kadib dastuurka la qaatay waxaa loo bandhigayaa dadweynaha si ay afti ugu wada ansixiyaan. nabee warkaasu waa warraaya, laakiin maqaamka caasimadda iyo matalaadda dadweynaha ku nool mugga u horraysa meel ha la saaro. qandaf looma baahane. waa sax arrintaas cabdullow. maqaamka caasimadda waxaa laga gaadhi doonaa heshiis siyaasadeed, waxaana sharci gaara ka soo saari doona baarlamaanka. haye mooge, maanta waxaanan maqlay in aad ka qayb gashay kulankii lagu eegaya dastuurka. maxaa ka jira warkaas? hayo weliba kaalin libaax ayaan ka qaada dooddiisii. haye moogow, aan kula kaftame waxa ku beddelay iyo webiga yaa weyl. asliyey waxba ima beddeline dastuurkaa iga badiyey. oo maxaad ula jeeddaa dastuurkaa iga badiyey? asliyey runta haddaan kuu sheego, dastuurka markii hore qalad baan ka fahamsanaa. waxaanna u haystay wax loo samaystay in dadka xaqooda lagu duudsiiyo inuu yahay. laakiin maalintii dhowayd markaan shirka idinka joojiyey kadibna aad askariga iigu wacday adigu oo tidhaahdeen naga xidha ninkan, jawaabtii askarigu baxshay baan ku bartay dastuurku inuu yahay lama huraan. moogow, barasho ayaa iigu kaa dhimanayd. waxaana ku haystay nin tookafeer ah oo raba inuu isbaaro u dhigto rabitaanka dadweynaha. laakiin haddii aad garowsatay in uu dastuurku yahay mahuraan, aniguna waan ku taageersanahay. maanta laga bilaabana garabkaaga iga eeg moogow, igana raalli ahaaw aflagaadadii aan kuu geystay. adaa mudan asliyey. inan walaashee anugu caradeedu meel ilama tagta ha ii qaadanin isbaarayste ma ihi aniga. laakiin waxbaan xaqiiqsanayo wakhti lays aamino ma joogno. adinkana gartiin bay ahayd inaad tidhaahdaan yaa naga taakeeyo askar u yeerataan iyo wixii kaloo ma garanaysa aad ugu gudbi kartaan. waa runtaa mooge, annaguna kaama aanna roonaanine raalli naga ahaaw. bal hoo koobkaan shaahaana xal u qaado, iga raalli ahaw mooge, saanba kuma mudayn. waa kaa guddoomay asliye, shaahana waa kaa gadalay. waxaad dhegaysateen qaybtii saddexaad ee sheekadii bara dastuurkaaga oo ay idiin jilayeen oday cabdulle, salaad anteeno, cabdulaahi kalgacal, faadumo indhooy, axmed dheere, macalin aadan, cabdimahad iyo sucdi cali shire. tan iyo intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.